واحد شيطان شن ولا ولاهي أبوري ويو يا بلان. Hey y'all, come look at this. ميدي كود الحين غني يحسن شن مقع والصومالي تغنوا بصدق. 3 hours later. Years later. مياو مياو. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دمان خارج شرفت لي ملك الدنيا ذيك الجوتان ولكن خضرية وإذن الله رمضان كريم وعن أول سن ما أنت واحد نوضة السؤالين نوضة أن سووا دين دون دنيرتا فضل لكن سأنت أنا أقول waxaan ka codsanaya haddii ay tahay markii kugu horreysay aad soo booqato inaad subscribe noo saarto haddii hore subscribe noogu saartana aad la soo wadaagto asxaabtada kale aad iyo aad baad u mahadsan tahay daawashada videogan marka su'aal baan soo weydiin doonaa dhalinyarta ku nool magaalada Brisbane su'aashaas oo saddex su'aalood baan soo weydiin doonaa saddexdaas su'aalood waxay kala yihiin su'aal diini ah su'aal mahmaah iyo su'aal adiga xujo ah marka bal aan wada daawano dhalinyarta Brisbane siday ugu jawaabaan. Alxamdulillah barakaatu khayrta sharafta leh Ramadan mubaarak meel kasta nagala socotaan maanta waxaan weydiinayaa dhalinyarta su'aal kadisa saddex su'aalood baan weydiinayaa qofkii su'aasha ka jawaaba wuxuu ku guuleysanayaa $50 qofkii laba su'aalood ka jawaaba wuxuu ku guuleysanayaa $30 qofkii ka jawaaba mid kamid ah wuxuu ku guuleysanayaa $10 marka haddaba ilka xasa ayaa nala jooga marka asxaabta هاتي ولا ماي اي شن معمارات سيارته بيجي ولا ينفع يكون ربايني وبقالك هلكا يا برعاء السؤال هذه ويدي واي سؤال شكله حاجه سؤال بقى يا برد الرئيس سؤال شكله واحد وين واحد شكله شن مقع سومالو تقنا بصدق اوكي ميد كميدا وبصدق افرت كلام سيدي مقرال وقوها يا اللغات كلها بيستعملها هو سومال بيسته مقرال في عمل كوي قال لوضو مغلمن لبدا جبيا لو قال واي سؤال صدحات حياه برجر سؤال صدحات waxa sheegtaa shanta noole oo Ilaahay abuuray bilaa hooyo balaan وشن نوله waa shan noole Ilaahay waxa abuuray bilaa hooyo bilaa balaan ha waa shan noole Ilaahay baa abuuray bilaa hooyo iyo bilaa balaan waay hayku سؤالي وعافلي يا إيران حافظ جوابي حافظ جوابي اسكو ضيف في عاد ما كجوابين ان شاء الله next time صدق ايا دوغ ما سنتاي ان شاء الله waxaan leeyahay marka asxaabta Cabdi Khadar iyo ku xiran waxaan leeyahay isku day wanaagsan oo badan yihiin ama si badiyo ay wada salaamina Ramadan kariim kullu caam wa antum bikhair akhar sharafta leh wali waxaan ku guda jirnaa su'aalaheena aan weydiinay dhalinyarta haddana waxaan la joogaa mid kamid ah dhalinyarta ku dhaqan magaalada Brisbane marka hore soo magacaaga lagu bilaabaya Cabdicasiis Axmed Saab waayo su'aashu waxa saddex su'aalood baa la weydiinaa saddex su'aalood hadduu ka jawaabo wuxuu ku guuleysanayaa $50 laba kamid ah hadduu ka jawaabo wuxuu ku guuleysanayaa $30 mid kamid ah hadduu ka jawaabo wuxuu ku guuleysanayaa $10 marka su'aalaha haddii aan u guda galno su'aasha ugu horeysa ku weydiinayno waxaa sheegtaa shan magac oo Soomaalidu taqaano bisada
كوب بسد Nyanyo. لبو شن مقع Kulal. مكولال وايهي صدح كميدو شاقي ودداليا لبا كود بس Nah, makan terus. وايهي ددال بدن بسميي لكن نسيب درو وايهي السؤال شلبات waxaa sheegtaa shan noole oo ilaahay abuuray hooyo iyo abalaan shan noole oo ilaahay abuuray hooyo iyo abalaan Next question. waayahay su-aashaana wuu beerdareeyey su-aasha kale waxaad sheegtaa shan maamaah leedahay sagaaradu Shanwa. shan maamaah ay sagaaradu leedahay William Maqlasal. Thank you. waxaan noo soo weli su'aalaheena aan weydiinaa dhalinyarta haddana waxaa nala jooga mid ka mid ah dhalinyarta ku noqon magaciisa waxaan weydiinaa saddex su'aalood baan weydiinaynaa saddex su'aalood dadka jawaabto waxaad ku guulaysanaysaa $50 laba ka mid ah dadka jawaabto $30 mid ka mid ah dadka jawaabto $10 waayahay su-aalahaas su-aasha ugu horeysa waxay ku leedahay waxaad sheegtaa shan noole oo ilaahay abuuray hooyo iyo abalaan shan noole oo ilaahay abuuray hooyo iyo abalaan midda koowaad waxay noqoni yaxaaska yaxaas hooyo iyo abalaan istakfirullah hooyo abaana ha ilaahay abuuray shan noole oo xayawaan waay miya noole baan ku rani okay noola ha ilaahay wuxuu abuuray hooyo iyo abalaan xaawiya marka xaawiya aadan maasha allah laba ka mid ah okay xayawaan xitaa waa noqon karaa soma ha shan noole okay noola hooyo abaana geedaha way noqon karaan istakfirullah shan ka mid ah okay shantii noole oo ilaahay abuuray hooyo iyo abalaan xaawo iyo aadan hooyadan xaawo iyo aabbahan aadan alayhi salaam wakaya labaas kan xaabis waayahay haddaan taa halkaa kaga gudubno su-aasha labaad waxa weeyaan waxaad sheegtaa shan magac oo soomaalidu u taqaano bisadda kow bisad anaa kuu bilaabaya laba mukulaal laba mukulaal saddex saddex yaanyuur afar waxay noqoni bismillaah isudaya mukulaal mukulaal waan haystaa mukulaal bisad iyo yaanyuur saddex baan haystaa muqallar muqalle taasay waayahay laba ka mid ayaan ka soo gudubnay su-aasha u dambeysay weydiina waxa weeyaan su-aasha u dambeysay waxa weeyaan waxaad sheegtaa shan mahmaah oo sagaaradu leedahay xayawaanka yar ee sagaarada sagaarada akhaarta sharafta leh waxaa weli inoo soo socda su-aalaheennii aan weydiinaynay bulshada ku dhaqan magaalada Brisbane marka maanta waxaa noo jooga mid ka mid ah dhalinyarta Brisbane waxaan ku weydiinayaa saddex su'aalood ka jawaabto waxaad ku guulaysanaysaa $50 haddii aad laba ka mid ah ka jawaabto waxaad ku guulaysanaysaa $30 mid ka mid ah aad ka jawaabto waxaad ku guulaysanaysaa $10 marka wakaas sa isku dayin Soomaaliga marka horeysa wallahi isku waxay u sheegtaa shan noole abuuray bilaa hooyo abalaan waayahay haye hashi waay laba saddex baan ka hayaa nebi aadan xaawo iyo iyo okay iyo nebi ibraahim wankii haye ma aqaan waayahay isku day fiican aad bay u soo dhaweysay laba ka mid okay saddex ka mid ah jawaabtay laba ku dhiman waayo su-aasha labaad baan guda gelinaa waxaa sheegtaa shan mahmaah ay sagaaradu leedahay shan maalmood sagaalaad ha orod badina sagaalaad
orod badan ama sagaara okay ma ay taa kuma jirto kulle ma maqal waayo su-aasheen ugu dambeysay waxaad sheegtaa waayo waxaan weydiinaya waxaad sheegtaa 5 magac oo Soomaalidu taqaano bisad ها بسد اوكي بسد كو يعني لابو كلال صدح مياو وصور وسوادنا لسه صدح بس شاكتي لما كمل ذاك يدمر والله واسكت في عن آلية بوصل ويسي نصيب درة لكن سماذا كجوابين وقتها قاري آلية بوق ما سنتهي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لما خرجت وانا خلصت waxaan ku guda jirnaa su'aalaheena aan weydiinay ee dhalinyarta waxaan ku joogay mid ka mid ah dhalinyarta magaalada Brisbane waxaan magacaaga طبعا magacaygu waa Axmed Walaal Axmed ku soo YouTube ka khadariyo saddex su'aalood baan ku weydiinaa saddexdaas su'aalood haddaad ka jawaabto saddex uga jawaabto waxaad ku guulaysanaysaa $50 laba ka mid ah haddaad ka jawaabto waxaad ku guulaysanaysaa $30 saddexdaad haddaad ka jawaabtana waxaad ku guulaysanaysaa $50 waayo su-aasheena ugu horeysa waxa weeyaan waxaa sheegtaa 5 noole oo ilaahay abuuray hooyo iyo abalaan 5 noole oo ilaahay abuuray hooyo iyo abalaan haa haddaad isku dayayso jawaabteeda waxaa oran lahaa awalan نبينا آدم عليه السلام عليه السلام صح ويدين حواء صح وشي نبي موسى عليه السلام اسكوبة الشعب أبي سدى صح حشي نبي صالح صح عليه السلام iyo wankii laga furtay nabi Ismaaciil عليه السلام si sax ugu jawaabay shanta su'aalood mar labaad ugu celi si ay uga faa'iideystaan dhalinyartu shanta su'aalood hooyadeen xaawo aabaheen آدم عليه السلام وشي نبي موسى isku bedeshay حشي نبي صالح عليه السلام iyo wankii laga furtay nabi Ismaaciil عليه السلام iyo wankii si sax uga jawaabay su'aasha labaad waxaan ku weydiinaa waxa sheegtaa 5 magac oo Soomaalidu taqaano xayawaanka la dhaafsada kow bisad magaca Soomaalidu taqaano bisada xayawaanka bisada hadii saa sheegtay صح يانيور مكولال بشو جديد taasna waa sax si sax ugu jawaabay su'aasha labaad ma sha Allah su'aasha ku xigtay saddexaad waxa weeyaan waxa sheegtaa 5 maahmaah oo sagaradu leedahay 5 maahmaah oo sagaradu leedahay waxaa horta maqli jiray diina sagaaro dalkiisa u doqmo marka aan ku saxo su'aasha oo caawinaya maadaama sheegay waa soo sagaaro inteeda sagaaro xaaran xusumi bin kitab waa sax gurmad sagaara wuxuu garab suma gala waa sax maqaar sagaaro harag sagaaro ee kacbo iga durq waaye sagaaro tun kala sagaaro laba tun wala kala malahan tabaaraka Allah shantii su'aalood si sax uga jawaabay Axmed wuxuu ku guuleystay $50 ma sha Allah videoga maanta intaas ku soo gabagabeynay su'aashii mid kamid ah dhalinyarta ku nool magaalada Brisbane ayaa ku guuleysatay waxaan leenahay hambaliyo marka intaasaan videoga maanta kusoo gabagabeynaa fadlan haddii ay marka kugu horeysatay ama subscribe hore noogu saaran waxaan kaa codsanaya inaad subscribe noo saarto aad la soo wadaagto asxaabtaada kale haddii aad hayso arrin iyo fikrad iyo su'aalo noocaas oo kale ahna iyagana qaybta commentiga noogu reeb insha allahna waxaan soo weydiin doonaa asxaabta aad iyo aad baad ugu mahadsantihiin daawashada videogan daawadansan asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu